اسمقل يداوشو عن صاحبيال halkani waa channelka dabagalka wararka waa 12 bisha 8 2019 wararkan idinahayna kuwooda ugu waaweyn waxa kamida beesha Daawud oo ku heshiin la hal musharax oo badala gudoomiyihii geeriyooday ee gobolka Banaadir warbixin aanu idinkaga hayno tartanka loogu jiro xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo shakhsiyaadka ugu hadalhaynta badan Cornel Caare iyo jabhadiisa oo heshiis la gaaray Somaliland iyo madaxweyne Muuse Biixi oo go'aan laga sugayo xog qarsoon oo laga helay go'aan xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya ay xabsiga kaga sii deysay mas'uuliyiin loo haystay dil wadareed iyo barakicin dadweyne Trump oo Israel ka dalbaday in Ilhaan Cumar aysan qaabilin marka safarka ay ku tagayso Israel iyo Falastiin faahfaahinna laga helay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso xubno kamid ah al-shabaab oo lagu laayay gobolka Shabeellaha Hoose ajaanib lagu haystay Soomaaliya oo la sii daayay iyo Axmed Madoobe oo ka digay cawaaqib xumo ka dhalan karta qorshaha ay dawladda federaalka ka wado magaalada Kismaayo intii raasaxbayal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe saar qaybta hoose ee faallada commentiga nagula wadaag aragtidaada muuqaalka la garee sidoo kale ha iloobin in aad gambaleelka furato si aad joogto uga hesho waqti kasta wararka halkan aanu ku soo baahino kuma hadsanid inaad kamid tahay saaxiibada channelka dabagalka wararka haatanna warkiyo fidsan beesha Daawud ayaa ku heshiin la hal musharax oo badala gudoomiyihii geeriyooday ee gobolka Banaadir geerida duqii magaalada Muqdisho ahana gudoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow kadib markii laga gudbay tacsiidii qarameed waxa soo baxay musharaxiin fara badan oo xilkan u taagan saddex kamid ah waxay ka soo jeedaan beesha Daawud oo xilkaasi doonaya in ay hantaan xasaatee mid walba oo dhinac u ordayo siyaasiyiin beesha ahna ay taageero kala duwan siinayaan shakhsiyaadkan kala duwan warar hoose oo uu helay channelka dabagalka wararka ayaa xaqiijinaya in saddexda musharax ee ku haybta ah injineer Yariisow Allah u naxariistay balse kala jufo ah inay xilkaasi xusul duub ugu jiraan kuwaas oo beesha Daawud dhaxdeeda uu ka dhashay muran abuuray lolan adag ee mid walba in jufadiisa dhinac ay u ordo hadalhayn badan ayaa suuqa ku jirta oo ku saabsan suurtagalnimada in xilkan bannaan in si degdeg ah loo magacaabo marka loo eego xaaladda ka jirta gobolka Banaadir iyo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan rag siyaasiyiin ah oo ku aadan arinta maqaamka caasimadda Muqdisho durbu waxa suuqa soo galay shakhsiyaad dhowr ah oo tartan ugu jira xilkan waxaana shakhsiyaadka ay isugu jiraan kuwa ku dhow xafiisyada ugu sareeya dalka iyo kuwa ay taageersan yihiin dhaqanka beesha mudulooda ila ku dhow madaxtooyada ayaa sheegaya in ay dhici karto in toddobaadkan ama horaanta toddobaadkan soo socdo ugu dambeyn la magacaabo xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho maadaama ay jiraan culeys ka imaanaya beesha mudulooda ilaa saddex koox ay isugu jiraan shakhsiyaadka raadinaya kuwaas oo koox walba taageero kala duwan ay helayso hadii ay noqon lahayd siyaasiyiin dhaqan iyo madaxda saraba inkastoo ay suuqa ku jiraan xubno caan ah oo hadba mid loo saadaalinayo in loo magacaabayo xilka maamulka gobolka Banaadir haddana waxa suurtagal ah in ruux aan la filinayn aan saadaasha iyo suuqaba ku jirin in la magacaabo ragga ugu cadcad ee la hadalhayo inay xusul dub ugu jiraan xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa kamid ah Cumar Dhagay oo xilligan ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha Cumar Qanso oo horay u soo noqday gudoomiye degmo agaasime Cali Gacal oo la rumaysan yahay in taageero uu ka helayo duubka dhaqanka iyo siyaasiyiin beesha ah Axmed Washington oo ah maarayaha dekedda Muqdisho oo isna taageero ka helaya shakhsiyaad ku hayb ah madaxweyne Farmaajo kaas oo horay dadaal ugu jiray in xilkan loo magacaabo sanad ka hor balse ku guul dareystay sidoo kale waxa la hadalhayaa Yuusuf Jaalle oo kamid ah saaxiibada dhow ee madaxweyne Farmaajo horeyna u ahaa maarayihii hay'adda duulista iyo saadaasha hawada inkastoo dhammaan shakhsiyaadkan ay ka soo jeedaan beesha mudulooda haddana waxa xusud mudan in ay sugayaan saxiixa kaliya ee madaxweynaha oo magacaabi doono ninka noqon doona gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho
dadka oo doroso siyaasadda ayaa sheegaya inay ku xiran tahay shakhsiga loo xusho awood ahaan taageerada uu beesha ku dhex leeyahay iyo sida madaxweyne Farmaajo uu ugu kalsoonaan karo waana tan kaliya ee su'aasha ka taagan maadaama madaxweynaha uu doonayo ruux isaga ay saaxiib dhow yihiin isla markaana si wanaagsan ula shaqeyn kara xilliga doorashada sidoo kale arrinta meesha ku jirta ayaa ah sida shakhsiga la magacaabi doono uu u maareyn karo dooda iyo abaabulka maalmahan socda ee la xiriira maqaamka Muqdisho ay horboodayaan siyaasiyiin caan ah wixii ku soo kordha wararka iyo xogaha qarsoon ee ku saabsan tartanka loogu jiro xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir wararkeena kale ayaad ku daawan doontaan insha Allah markana Somaliland Cornel Carre ayaa heshiis la gaaray Somaliland iyadoo madaxweyne Muuse Biixi laga sugayo go'aanka ugu dambeeya waxgarad u kala dab qaadayay xukuumadda Somaliland iyo jabhadda hubeysan ee uu hogaamiyo Cornel Carre ayaa sheegay in guulo laga gaaray wadahadalkii labada dhinac ee ku aadanaa in la soo afjaro dagaalka ka dhaxeeya Sultan Ahmed Cismaan Cadagude oo gudoomiyaha oday dhaqameedka dhexdhexaadinaya xukuumadda Somaliland iyo Cornel Carre ayaa sheegay in iyaga iyo Carre ay heshiis gaareen una hadda hor yaalo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Cadagude ayaa sheegay in Cornel Carre uu heshiis qaatay balse ay sugayaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo haatan Sacuudiga ugu maqan gudashada acmaasha xajka oo sanadkan ka qayb galayay Sultaanka ayaa sheegay in qofka mas'uuliyaddu ka saaran tahay heshiiska uu yahay Muuse Biixi isla markaana ay dooranayaan in uu la yimaado tanaasur ku aadan sidii dagaalkan loo joojin lahaa loona soo afjari lahaa colaadda gacanka hadalka isku bedeshay ee ka dhaxaysa Somaliland iyo Cornel Carre Sultan Ahmed Cismaan Cadagude ayaa sheegay in ay qaateen doorkooda ku aadan dib u heshiisiinta waxaana uu ku baaqay in la joojiyo colaadda gobolka Sool si dadka deegaanka ay u helaan nolol ka duwan midda maanta ay ku sugan yihiin jabhadda la magac baxday Dulmadiid ee uu hogaamiye ka yahay Cornel Carre oo hore uga tirsanaa ciidanka Somaliland ayaa isaga baxay ciidanka waxaana uu ku dhawaaqay dagaal uu ku xoreynayo gobolka Sool dhanka kale xog qarsoon ayaa laga helayaa go'aan xirlalinta qaranka ay xabsi kaga sii deysay mas'uuliyiin loo haystay dil wadareed xirlalinta Soomaaliya ayaa fasaxday ugu yaraan 8 qof oo mas'uuliyiin ah kuwaas oo ku eedeysnaa dambiye isugu jira dil wadareed iyo barakicin dadweyne dadkan ayaa dhamaantood ah mas'uuliyiin xilalka iyo maamulka Jubbaland saameyn siyaasadeed iyo mid amni ku leh deegaanada maamulkaas gaar ahaan gobolka Gadow xubnahan ayaa waxaa kamid ah wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland taliyaha ciidanka NISA ee maamulka Jubbaland u qaabilsan gobolka Gadow gudoomiye hore ee degmada Beled Xaawo mas'uul ka tirsan qaybta amniga ee degmada Doolow iyo dhowr qof oo kale liiska dadkan ayaa waxa loo gudbiyay hay'adaha u dooda xuquuqda bini'aadamka iyo qaramada midoobay sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan hay'ad maxalli ah oo gobolka ka shaqeysa mas'uuliyiintan ku eedeysan tacadiyada ka dhacay gobolka Gadow ayaa dacwad ka dhan ah laga furay magaalada Muqdisho markii uu dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud balse tan iyo markaas marnaba ma amaanin maxkamadda iyadoo sidoo kale garsoorka Soomaaliya aysan u yeerin mas'uuliyiinta la eedeeyay sargaal sare oo ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kana tirsan hay'adda fan oo leh ee ka shaqeysa gobolada Jubbooyinka ayaa sheegay in xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya ay fasaxday dadkan 8 qof ee ku eedeysan dil wadareed iyo barakicinta dadweynaha dilalka ugu badan ayaa ka dhacay gobolka Gadow ee Soomaaliya waxaana ugu sii daran degmooyinka Doolow Beled Xaawo Luuq iyo Baar Dheere halka qaar kalena ay ka dhaceen gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo geesta kalena Donald Trump ayaa Israa'iil ka dalbaday in Ilhaan Cumar aysan qaabilin marka safarka ay ku tagayso Israa'iil iyo Falastiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maamulka Israa'iil ka dalbaday in aysan Ilhaan Cumar iyo Rashida Tayyiba qaabilin marka ay safarka ku tagayaan Israa'iil iyo Falastiin sida uu qoray wargeyska Axios oo ka soo baxa Washington Trump ayaa kula taliyay Netanyahu in labada xildhibaan ay ku jira baarlamaanka Mareykanka laga mamnuuco Israa'iil waxa uu sheegay in labadaba ay yihiin cadawga Israa'iil markastaana ay ka shaqeynayaan arrimo ka dhan ah jiritaanka Israa'iil Ilhaan iyo Rashida ayaa bishan tagaya Israa'iil iyo Falastiin waxaana horay u soo dhaweysay arrintaasi Israa'iil oo safiirkeeda Mareykanka sheegay in la qaabilayo dagaalka u dhaxeeya Donald Trump iyo gabdhaha muslimiinta ee Ilhaan iyo Rashida ayaa soo baxay kadib markii ololihii doorashada Mareykanka 2016 xilligaas oo Donald Trump uu ku baaqay in muslimiinta laga mamnuuco Mareykanka labada gabdhood ayaa iyaguna halgan u galay sidii Donald Trump awood ka hor istaagta dadka muslimiinta ay ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka Mareykanka taas oo hirgashay markii ugu horeysay
Trump iyo Netanyahu ayaa labaduba wajahaya dacwado la xiriira musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed oo ay sameeyeen inta xafiiska ay joogaan. markana magaalada Boosaaso faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaaladaasi. wararka laga helay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi uu maanta ka dhacay qarax khasaare geystay oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso. qarax oo ah miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa goobjoogayaal waxay noo sheegeen in lala eegtay gaari nooca raaxada xilli uu hormarayay mid ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada Boosaaso. ilaa 2 askari oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen ciidamada badda Puntland ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay, kuwaas oo dhaawacooda la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso. wararka waxay intaasi ku dirayaan in ciidamo ka tirsan kuwa booliska Puntland ay gaareen halka uu qaraxa ka dhacay, kuwaas oo halkaas ka sameeyay howlgal aan wax natiijo ka soo bixin. dhanka kalena faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgallo ay ciidamada dawladda Soomaaliya ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. howlgallada oo ah kuwa ka dhan ah Al-Shabaab ayaa ka socda agaarka degmada Awdheegle ee gobolkaasi. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalkii ugu dambeeyay ay ku dileen ilaa 16 ruux oo ka tirsanaa ururkaasi. sargaalkan ayaa tilmaamay in howlgalkaasi uu ka dhacay inta u dhaxaysa Bariir iyo Awdheegle, kadibna dagaal ay la galeen Al-Shabaab isla markaana ay ku dileen xubnahaasi. dhanka kale weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka ururka Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi. ciidamada militariga Soomaaliya ayaa dhawaan la wareegay Awdheegle, waxaana maalmihii dambe ay wadeen howlgallo xoogan oo ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka Awdheegle. dhanka kalena ajaanib Soomaaliya lagu haystay ayaa la sii daayay. shaqaale ajaanib ah oo u dhashay Thailand isla markaana in muddo lagu haystay gudaha Soomaaliya ayaa maanta dib ugu laabtay dalkooda. shaqaalahan oo tiradoodu ay gaaraysa ilaa 18 isla markaana ah kalluumaysato ayaa ku sugnaa xeebaha maamulka Puntland. wargeyska Bangkok Post ayaa qoray in shaqaalahani ay muddo dheer ku xanibnaayeen biyaha bari ee Soomaaliya isla markaana lagu hayay tacadiyo dhanka shaqada ah. raggan ayaa xilligii la qabanayay la socday doon kalluumaysi ah oo magaceeda lagu sheegay Wadani 1. qoysaska raggan ajaanibta ah ayaa horay u dalbaday in dib loogu soo celiyo wiilashooda, kuwaas oo ay sheegeen in lagu shaqaysto laguna dhibaateeyo gudaha Soomaaliya. ugu dambeynna madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ka digay cawaaqib xumo ka dhalan karta qorshe dawladda Soomaaliya ay ka wado magaalada Kismaayo. madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa uga digay dawladda Soomaaliya faragelinta ay ka wado Jubbaland inay kaga sii dari doonto xaaladda hadda jirta, isla markaana dhibaato iyo cawaaqib xumo ay u horseedi karto. arrimaha doorashooyinka ayuu sheegay in qof walba uu dantiisa ka hormariyo midda guud oo xukunka maalmo kooban uu yahay, loona baahan yahay in shacabka loogu adeego. dawladda federaalka ayuu sheegay in ay faragelin iyo xaalad abuurka ay ka wado Jubbaland uusan dan u ahayn shacabka, mar walbana xaaladda ay kaga sii darayso, isla markaana burbur ay ku keenayso dadaalada muddada dheer soo socday sidoo hadalku dhigay Axmed Madoobe. qofna wax dan ugu jirto inta aan ka wada shaqeyno oo qof kasto inaga mid ah u naxo gabdhaha guryaha jooga, odayaasha, kuwa naafada, kuwa macawqiinta ee lugaha leh iyo kuwa indhaha leh iyo kuwa intuu ka naxo qof waliba ha noqoto waxa uu ka fakarayo wuxuu u danaynayaa bulshadaasi meesha ay maanta joogto maxaad ku soo kordhin kartaa, wax adiga dhib oo ka yimid muxuu geysan karaa inaadan arintaa aadan isku dayin oo aad ka shaqeyso midaas. dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay mas'uuliyad baa idinka saaran. shalay baa la dhisay, meel baa la gaaray, waxbaa hore loo socdaa. in dib loo noqdo oo la isla guriyo oo waxaan jirin laga shaqeeyo oo anaa idin la yiraahdana macno badan ma sameynayso. waxaan leeyahay ha qaateen taariikh baa qoraysay, qof waliba mas'uuliyad uu leeyahay dadka waxa ka dhaxeeya laga wada shaqeeyo oo dawladuna ummadda waxa ay masiirkeeda kaga tashanayso roolka ay ku leedahay waa loo ogolyahay inta uu ogolaato. dadku aayaheeda ka tashadeeno waxa iyaga hor yaala ee ka shaqeynayaan ay qabanayaan ha la ogaadeen oo ha laga shaqeeyo. laakiin yaa la oran anaa sidan raba, sidan hadaan la yeelin sidan aan yeelaya iyo inay gubataa ka fiican intay wax nabad ka noqon lahaayeen. oo bari qof walba maanta taariikhda Soomaaliya la soo maray, deegaan walba iyo gobol walba iyo taariikhdeedii hore iyo xilligii ay hore ilahay qof walba taariikhda intuu ku lahaa la soo qoray. in taariikh madow shalay oo bari lagu dhaayaa iyo gacanta lagu sii taagay wax dana kuma. waxaan oran lahaa markaa mujtamaca
ha lagala shaqeeyo waxa dantoodu ay tahay gobolkani waa gobol Soomaali ay ka kooban tahay oo Soomaali ay wada degan tahay ma noqon karto meel qof walba fikrigiisa iyo aqliyadiisa soo keeno iyo waxa isaga dantiisu ay tahay lagu maamuli karayo waa mid dadka waxa ka dhaxeeya lagu maamuli karayo waxa ay xaq u leeyihiin ha loo daayo ha yeesheen oo laamaha sharciyada u leh ka shaqeynayay ha u madax banaanaadeen shaqada ay leeyihiin oo ha laga daayo cadaadiska culayska innaguna aan isqabsana gacmaha aan si midaysan uga wada shaqeyno waxa inoo yaala iyo midnimadeena aynu ka shaqeyno amnigu waa wax shay walba ka muhiimsan waxa maanta maalin walba inoo yaala kuwii soo naaftay lagu jajabeen indhaha beelay intaas inay bal dadkaasi noloshan ku soo noqdaan sababtooda iyo kuwa dhintay maanta ay sababtooda arrintan ku soo gaadhay haddii marka iyaga aan khiyaamayno burbur iyo dhibaato kale dib loogu celiyo kuwii shalay dhintay ku soo dhintayna waan khiyaamaynaynaa kuwa maanta naafadaana waan khiyaamaynaynaa inaguna waxba heli mayno aan ka wada shaqeyno markaa midaas aan middaa ka shaqeyno oo wiilashaas askarta ee soo naaftayna dhibaato dambe aan lagu celin odayaashaas iyo hooyooyinkaas iyo dadka dhibaatada ka soo baxaynayna aan ku celino aan ka wada shaqeyno arrintaas oo cid waliba ha ka shaqeyso sida lagu sii wada jiri lahaa sida lagu sii wada joogi lahaa iyo sida wax dadka ka dhaxeeya loo sii horumarin lahaa ha noqoto danta maanta aad leedahay ama kursiga maanta aad rabto waa wax berri aad ka tagayso hubaal waxaa haddii xataa lagu daayo maanta lagu daayo berri lagu daayo haddaad wax kastoo kale oo dhan ka badbaado ajal baa kuu taala wadkaadan ka badbaaday isagaa ku soo qaban taana waxay la tahay bal sidaa hala yeelo waxaan odhan lahaa ilaahay ciideeda abshir iyo khayr iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo aan iscafino waliba xilliga siyaasadda lagu jiro aad baa laysu cafiyahay waan isgaranaynaa qof waliba qofka kale iyo wax tabashada iyo sida la kala qabiyo intii la iswada cafiyo la iscafiyo oo maanta iidaasaa looga faa'iidaysto oo dadku ay caruuraha iyo kuwa suuqa jooga iyo kulligoodna insha Allah laga wada farxiyo waxaan isleeyahay marka insha Allah taasay inoo tahay hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh guud ahaan war wixii dal iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen channelka dabagalka wararka wanaaginta haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biro subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino kuma hadsanid inaad daawatay muuqaalkan